السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كريم كأنه سمينا هرت على إنه كسمينا واتنا عم نطلبات بلدين كسر عليي فيديو وانا ودين كتير دونتها هذا ما عرفتي finished product بعدين تصيا كريم كهرت ساسو أصاب حي وكاسة يا ساسو أتكالي وكريم كاس نو كيميكا 100% يا تما هنا هذا توحو ودي حقلا ياسين إن بعاده هين تما وحين نقنا ينسح ذي أو ساس معرفتي هندي عمله ما شاء الله قف كتما هذا كتما تروح سنة واللي بتمها ماشى حريرها أو وجه جيسي سا ما عرفتي هالقاس نحكي قصة من ساتي ما بدنا إني كاغ صباحان udgoon ka ku sii dheer laana udgoonka waxa wadata seared wood aad u udgoon tahay marka ma sha Allah ila fiirsada fiidiyowgii dhamaantiis ku soo dhawaada hadana sidaynu u sameeynay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خيارات شرفت روائي والسلامة ولا شيء الحمد شكري. هل كمان توحان ربا إن أينو ولا سماينو كريم تمها الله سماينو كريم تمها أما واحد الله يقانو ومد وحويان وأفقل وجود ولا وصو كلمة الوجود ولا وصو فسيل كراس ومالها وحويان كريم إنه استعمالنا الكريم هان مركا وحو ككوبين أينو ضل مرينا wuxuu ka koobnaan doonaa saliido kala duwan ama waxyaalo agentiyo kala duwan oo waxyaalaha qaar ba dhaho hiding agents waxa weeyaan waxyaalaha maaragtay waxyaalaha naturalka markii aad rabin biyo inaad isticmaashid ama emulsifier badan aad isticmaashid aad rabin inaad maaragtay ay ku adkeeyaan kareemka si natural ah adigoo aan waxyaalihi kiimikadii kale aan ku daraynin laakiin natural ahaan wixii inay ku adkeeyaan oo ku fariistaan ayaa hiding agents kala yiraahdaa wixii aad ka samayn lahayd marka halka waxaan ku haystaa emulsifying wax sidaad u jeedaanba emulsifying wax قدر يربى نستعمالنا stroke acid hopefully لاركو يلا قدر بنستعمالنا beeswax انت سواء انتي أكيد وهذا نأكل كليس كورناي وحين كلا استعمال دونا قدر كان سيقي يستوى ملقعات بقولك مساحة دي لا قياسه oo mango butter oo jeedaan saasuu yahay okay marka intaas oo kale aan uga baahnahay halkaasaan kusii shubtay waa mango butter waa subagii cambaha camal ayaa afka Soomaali ahaan lagu turjumi karaa waa cream la fariisiyay oo dhagaxa oo sidii butter oo kala subag oo kala adag oo laakiin 100% mango butter weeyaan 100% pure mango butter aku qoran waxyaar oo malqacada nugeeda malqacada aad ayay u yartahay malqacadaha normalka ma aha kamarada ayaa weynaysiinaysa oo hohoba oil cedarwood essential oil soft oil kaygu waxay noqon doontaa hal ounce oo ah saliidda halka igu jirtaay waa caadan hore ugu shubtay waxaa weeyaan أليف oil وحد استعمال كرتا أليف oil sunflower oil grape seed oil اللهم صل على محمد coconut oil وحصل لما استعمال كرتا مركب أنا تستعمال يا و أليف oil مركب
waxaan ku haystaa jamcad ama bowl ama baaquli marka saan waa maray soo maaha. waxaan soo qaadayaa awalan beeswax, kana waa measurement cup, waa koobka wax lagu cabirto. waxaan rabaa saliidahayga alaabahayga adag oo hardening agentiga inay noqdaan marka la isku geegeeyo 50 ml together. marka waxaan soo qaadanayaa hal malqacad oo aada u buuxda oo ah beeswax u fiirsadayaa waa xasaasa waa shaygaas. waa wax yaroo inayna waxaan ku xijinayaa citric acid oo aan kusoo qaadan doono malqacadaydi yarayd. malqacadan aad bay u yartahay, haday u badato waxay noqon kartaa 5 ml. wataasayna waxaa yaroo wax yaroo powder camal oo kale weeyaan, laakiin powder maaha, way ka yara adag tahay. hortiina ku furaya, hore uma furin. siidaan waa maxay? emulsifying wax ama magaca kaloo loo yaqaan bola wax. hadda ma kuguuno ama BMS 50 waa maxaa, laakiin marka laga kaabooyinka camal lagu sameynayo malqacada yar ku isticmaala. taasna maxaan uga baahanahay? waa malqacada yarayda haafa waa just like beeswax-ka u eg tahay, laakiin shaqo kala duwan bay qabtaan. bola wax maxay tahay? wax yar haddaan isticmaalo ama emulsifying. hadda hortiina emulsifying ku qoran, laakiin bola wax-na waa la dhahaa. marka waa waxyaalaha biyaha iyo waxay isku dhajisaa iyo saliidaha. hadda anigu biyo ma isticmaalayo maanta, biyo ma isticmaalayo oo creamkan uma isticmaalayo biyo, balse shaqada ugu weyn ay qabato waxaa weeyaan in emulsifying inay isku dhajiso biyihii iyo saliidihii ayaa loogu talagalay. number 1 shaqadeedu. waxaan ku darayaa malqacadii ahayd mango butter, dhankaas dhagde. kani waa 2 ounce shay yar, koob yar lama dhigi karo, adigu jar baa daa maaragtay caadi yar oo loogu talagalay inaan ku shubto kareemka hadhowto. waa jararkaygaan ku shuban jiray solid profonka ama saliido ama waxa uga badan baan ku isticmaalaa. marka baaquliga kan ayaynu ku shubanaynaa, waxaynu ku sameynaynaana waynuna diirinaynaa, dabkaynu saaraynaa saliidahan si ay agtan oo dhan ay isugu dhaqaaqdo. saliidaydii kale ayaan halka kusii qiyaasanayaa. markasta qiyaasta idinku tuso gabagabigeeda ka qaadee. bismillah ku wada shub. ayaduna waxay noqotay exactly 50 ml ama 50 ml. qacdayda dhaqifta ahayd ayaan kaga isticmaalayaa muggeed jojoba oil waa saliid aad u wanaagsan,
waxay joogi kartaa siday madaxadeedu ii sheegtay berigii waxay joogi kartaa 20 years way joogtaa 20 sano ay ooli kartaa waxaa laga extract gareeyaa waxaa laga soo nuugaade ama laga soo milaa waxyaalo la dhaho wax marka way ka sharaf life dheer tahay way ka noolan dheer tahay de اللهم صل على محمد سليدها كلودن أما أجنتياش كلودن أما وحيالها كله كوسماتيك كلا كسمايو مركي أم بريسيرتيفز لاستعمالين مركا وقتي أدو ديري جوكا حتى أنا وعدلا يروتو أنسي هاي لكن ستيل أمسي استعمالي كرا مركا تاس مكدو مكا استعمالي so ما شاء الله مركا سليدي ألعابي أضبطها بيسواكسكي استرقايسيفكي بولا واكسكي أما مصفاين ستيل وضبطة هذا تقاني مانكو بدركي كدي هل كان كسوهدا شبي وادكسي بيان دبقى ساري وحان كوشسي شبي وحان كل حديده باقولي بي بلد أهاي وانا لابت فوقديري ايا كل حديد marka waxaan sugayaa intii maaragtay ay isku milmayaan waxaa la rabaa inay isku milmaan oo isku noqdaan saliido marka waxaad isticmaali kartaa adigu waxaa la dhahaa double boil markay haddaad double boil haysatid bahal galaas weeyaan oo loogu talagalay dadka inuu saan oo kale ugu xeeyo haddii kalena adigu hadda double boil kaada mahayso waxaad samayn kartaa digsigiisii waa double boil biyaad ku shubaysaa بعدين شيء غادي شيء سيف وأمان شبيني إنه ما تدرس كذا كذا أو دلا أي استعمال صار أما قليل سونا سيف القوى reaction ku sameynaynin oo maaragtay waxaysan reaction kale ka dhalanaynin saliid dabkii iyo alaabaha markay soo jahaan marka horena alaabtaada dhan waxaad ku sameynaysaa sanitize waad sanitize garaynaysaa waxa ugu fudud oo ku sanitize garayn karta waxaa weeyaan haddaad haysatid waxaa la dhaho rubbing alcohol ama spraying alcohol ama waxaad samayn kartaa khal yar ama vinegar waxaa loo yaqaano khal ama vinegar iyo waxaad isku daraysaa Clorox ya wambaasayta Clorox oo ka dhigaysaa Cloroxta then alaabtaada oo dhan alaabteeda ku samaysanaysay ayaad dhexgelinaysaa sida dhalada malqacadaha wixii containerka yar oo aad rabtid inaad hadhowta kareemka ku dhigatid ayaad dhexgelinaa marka intaasna waa sheekada kale oo sanitizeka marka saas u eegtaan soo ma jeedaan inay soo dhalaalayso oo jeedaan oo isku wada dhalaatay iyagoon soo qacda u dhaysan u jeedaan in aad loo mutageliyo baahan yihiin laakiin timaha jirka waxay u wada yihiin daad jirka waa markaad marisid hataa kareemahan saliid hadhowta creamkan body cream ahaan waad isticmaali kartaa adoo ka dhigaya waxaa la dhaho body butter ama bleeding markaad mutaraysid oo aad ku samaysid maaragtay mashiinka wax lagu gareeyo marka taas waa sheeko kale yar ma confusing intaasaan uga baxaynaa sheekada kareemka mar ma samaynaya soo tusi doonaa laakiin hadda waa heer cream dadkii la socon jiray waxay arki jireen ayagoo creamsaan oo kale la dhaho oo briiqa la dhaho bureeqa dheer bureeqa hair cream ya ama bureeqa hair lotion way jirtay marka ayadii aad guriga ku samaysan kartid sida ugu fudud ka wada faa'iidaysanaynaa maanta soo ma jeedaan hadda waa isku midneen waxaan ku daraynaa saliideenii aynu diyaarsanay oo ahayd maaragtay liquidka ahayd
jeedaan saliidda qoyanay markay taabatay way isla fadhiisteen. Marka intay soo dib qoyanay isla ay wada nuugtadoodaane oil u wada noqdaan. Wixii wada iniinaha ahaa iyo maaragtay powder kadib waa kuwa saas u wada milmay. maasha allah iminka way isugu keen soo wada milmeen. waxaan samayn doonaa caagan ayaan ku shubayaa saliidda dabka ku soo qaadanayaa. jeedan saan qoyn caadi saliidda markaan leeyahay waa wada dee iska saliid camal oo kale haddaba isla noqdeen. marka ila fiiriya xaggan ku shubtay waxyar markay qabowdo ayaa waxaan ku darsan doonaa essential oilka xoogaa masugi doonaa lianna essential oilska iyo preservativeska inkastoo halkan hadda uusan preservatives ku jirin ama waxa shalaf leefka lagu sameeyay markasta waxaa lagu daraa at the end of your project ya waxa aad sameynaysid marka ugu dambeyso oo ay qaboobaan ya ayaa lagu daraa. marka hadda waxaan sugaynaa in ay wax yar noo yaro qabowdo sida essential oilka waxtarkeedu uusan u dhimanin. magaceedana maxaan idin yiri waxa weeyaan cedarwood 100% pure. aad bay u udgoon badan tahay. intaynu qadarka aynu u baahan nahayna waa 3-4 drops oo u dhigmaysa marka loo xisaabiyo productiga meesha ku jira waxay noqonaysaa 1% of it, less than 1% or 1% around there. marka bear with me. markasta waxaad u baahan tahay inaad cabirto haddii aadan familiar ku ahayn recipe-gaagana aad qortid. alaabahayga waan xirxiranayaa. marka waa natural 100% adigaa gurigaaga ku samaystay. preservatives ma laha, kaagamana baahna. 6 bilood ayay joogi kartaa. yaa 6 bilood bay ku ooli kartaa shalaf leefkeedu qadarka maaragtay ay ooli kartaa oo uusan waxba ku dhalanaynin bacteria. waxa weeyaan 6 bilood according to oil saliido wanaagsan oo waqti dheer ooli kara markaad isticmaashid weeyo. laakiin saliid iyadoo 2 bilood u harsan tahay ama 3 bilood u harsan tahay haddaad ka samaysid dee way kaa xumaanaysaa. marka u horeysaba waxyaalaha aad isticmaalaysid especially soft oilska ayaa taariikhdooda eeganaysaa. kuwani muddo dheer bay joogaan. waxyaalaha hiding agentiga ama waxyaalaha wax lagu adkeeyaay laakiin soft oilka ayaad iskooga maaragtay taariikhdeeda iska fiirisaa. haddaad sunflower isticmaalaysid iyo haddaad isticmaalaysid saliid zaytuun, haddaad isticmaalaysid coconut oil, haddaad isticmaalaysid grapeseed oil, waa inay saliid waqti 6 bilood ooli kartaa ay ku noqoto. marka hadda creamkan ama hair pomade-kan ma u baahna preservatives waxa la dhaho intaa enough ku ah. marka bear with me ila jooga. waxaan sugaynaa intii aynu ku dari lahayn cedarwoodka wax yar baa ka harsan. waxaa jirta wax yar la dhaho heat gun oo lagu fiiriyo laakiin hadda waa small product, waa wax yar baan samaynayaa oo maaragtay caagaas yarkaa umana baahna. waa waxaan muddo dheer soo sameynaya oo very comfortable aan ku ahay maaragtay aan la qabsaday samaynteeda. maaragtay haddaad la qabsatay sida loo sameeyo adigoo indhaha isku haystaad samayn kartaa. maaragtay kaba soo qalcan jeel oo kale adoo indhaha isku haysta qasaysaa oo samayn kartaa. marka alxamdulillah hadda waa la qabsaday laakiin marka hore waxay nagama recipe-ga inaad weight garaysid oo bahal lagu weight garay especially haddaad wax weyn samaynaysid. laakiin markii gacantaada la qabsato wixii aad wax badan samaysid practice badan aad samaysid waxaa samaynaysaa wax kasta you know by heart wadnaha ka taqaanaa. marka hadda waxaynu ku darsanaynaa essential oilkeeni. videoga kan wuxuu sheeko badan baa ku jirta marka waxaan ugu talagalay oo waxaa usoo dhexgelinayaa markasta oo ka sheekeynayaa waxyaalaha isticmaalkooda iyadoo maaragtay weliba faham kaloo badani kusii dhiman yahay.
in qofku fahmaan leanna waa faa'iido. marka faa'iidadii waxaa soo dhex galaysa explanation badan, war badan, straight forward wax maaragtay alaabta lagu tusayo durbaba waa idin tusay, laakiin straight forward sheekada haddii lasoo gagaabiyo faa'iido kuma jirayso meeshii. marka aniguna waxaan rabaa qof kaloo walaalkaya hadhowto siduu saas oo kale u samaysto inuu step by step aan wuxuu u tuso uga faa'iideeyo marba maaragtay usoo dhexgeliyo alaabta kale mufiidkeeda. marka iminka 1 2 3 4 5 drop aan ku dhigay, dib malaha 4 bay ahaan lahayd, laakiin hadda waxaan ka dhigay marka way fariisan doontaa. waxaa fariisanaya alaabahan saddexdaa, emulsifying, citric acid iyo beeswax. waxay ku noqon doonaan wax adag bay noqonaysaa sidii maaragtay kareemada fadhi oo kale. marka gacantayda hadda tartiib turbuunka saa loogu duufiyo already way sii fariisanaysaa. maqacdii hore ku walaaqayo taasaa yusiisa u fariisatay. marka jirkaad marin kartaa, timahaad marsanaysaa. hadda tan timahaynu u samaynaynaa maanta, laakiin jirkuna waa lala marin karaa. yaa see is observing aad bay durba jirkii ula qabsanaysaa. alaabahan oo dhan haddii aad u baahan tahay waxaad kasoo baran kartaa shirkadda amazon.com, amazon.uk.com. amazon haddaad qurbo joogtid amazon maaragtay si easy aad markasta uga shop garaysan kartaa. haddii aad Soomaaliya ama wadamada kale ku nooshahay waxaad dhihi kartaa qof hala iisoo dhiibo ehelkaaga jira xaggaas, lianna meelaan kugu sheego kale hadda ma garanayo. marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaynu samayn doonaa, waa isu soo noqon doonaa. horta waan daboolayaa, waxaan daynayaa inay maaragtay cabaar ay taalo oo soo adkaato, kabacdi baan idin tusi doonaa markaasay noqotay. marka saas iyo sugni wanaagsan.